مسؤولين كترسم دولة goboleedka Jubbaland iyo saraakiil ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa deegaanka Raaskambooni ka soo sogootiyay askartii dhawaan ee ciidanka Jubbaland ay gacanta ay ku dhigeen. Waxaa mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlay ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan isla markaana ay had iyo jeer diyaar u yihiin inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Mas'uuliyiintan ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in ay ka digtoonaadaan in ciidamada u soo diraan deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose. Aniga Maxamed Aadan Axmed ka tirsan guutada 77 ilaalada madaxtooyada oo ku sugan hadda garoonka Raaskambooni waa nabad qabnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin. dagaal baan noo ku qabtay waana nabad qabnaa si fiican bay noo soo dhaweeyeen ciidan Soomaaliyeed xil Soomaaliyeed baan soo dhaweeyay maanta waa nabad qabnaa wixii dhintayna Ilaahay u naxariisto wixii dhaawacayna Allah caafiyo wixii dhaawacana waa la daweeyay wixii dhintayna way dhinteen inta kale waa nabad qabnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin. إلهي ما هذا الكلام. لو عندك لعدنان عمر محمد لمبرك واتوني أفر لواتن إلبو واحد واتن اللي مقارسين نمضى عبد المقدسين شو دقيقة إن شاء الله. عيدك كرم على الترسانة. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي وياي عبد الشكور مرسل محمد آذن كترسن قلت 77 إلى على المحتويد أنا كنت صدق يسد حقفها مش كجوجنا سفي عم بنا نور رقمي وإحنا نورد من ملا دجال بنو قبتي بالله توفيق عيدي نبى جوكتان عيدي نبى تجيسان قريني نبى عاوه ينسان كسمعي ما مريسان حمرة كدجيسين اسمع سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. halkani waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Raaskambooni waxaan ku wareejinaynaa taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga Soomaaliya taliye Macalin Nuur qayb ka mid ah ciidamadii dhalinyaro Soomaaliyeed oo maxaabiis ah oo lagu qabtay dagaalkii Arbacada meeshan ka dhacay qaybtii koobaad faleedii koobaad oo laba faleed ka kooban baan dhoofinayna maanta oo nu dhoofinayna magaalada caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo guryahoodii Arbacada dagaal baa meeshan ka dhacay dagaalkaasi wuxuu ahaa runtii dagaal nasiib darro ah kuma faraxsanin sababtiisana waan garanaynaa Jubbaland gaar ahaan deegaanadan hadda aan joogno Kambooni waxay ahayd deegaanada ugu ammaanka badan Soomaaliya ma ka mid ahayn deegaamada ciidamada ATMIS ay joogeen ka mid ma ahayn waxaa joogay ciidanka Jubbaland laga soo bilaabo 2011 oo ka qabtay shabaab waxa adan deegaan nabada deegaan waxa weeye aan xabado ka dhicin even xataa 30 sano la soo dhaafay dagaal ka dhicin buu ahaa waxana sib darro ahayd 25kii bishii 11aad in dawladda federaalka dhalinyaradan ku soo daabashay diyaarado xamar ka keentay ka soo dejisay halkan say ula dagaalamaan walaalahoodii ciidankii xoogga Jubbaland ee la dagaalamayay shabaab cid la dagaalamayay shabaab ma ahayn waa ciidanka xoogga ciidankii Jubbaland ee deegaamada joogay bay ahaayeen kuwana in la laalusho lacag la siiyo oo la yiraahdo number beena iyo hawl kale loo sheego waa la siinaya waa la qalabaynaya yaa xaweeya ka dhalatay dagaalkaasi Arbacadii soo gabagaboobay dhalinyaradani waa dhalinyaradii beesha lagu qabtay kuma faraxsan dhalinyarada Soomaaliyeed in maxaabiis ku tilmaano kuma faraxsan dhalinyarada Soomaaliyeed in la laayo kuma faraxsan dhalinyarada Soomaaliyeed isku dhintaan cid xabad naga mudan ee inaan la dagaalano ay tahay waan garanaynaa waa shabaab waxaad moodaa dawladda Soomaaliya inay ka mashquushay dagaalkii la rabay in lala galo shabaab oo xoogga la geliyo waxa daliil ku filan inaan dagaal ka dhaxeeya ciidanka xoogga Soomaaliya ee taliyuhuna gala joogo qaybta 43aad ee Jubbaland ka hawlgalaysay iyo ciidamada Jubbaland inaysan jirin taliyuhu Kismaayo hadda ka soo duulay halkaas uu ka hawlgalaa iyadoo ku laamani doona geeday joogan dhoobley bay joogan waxa weeye deegaamada xabadna kama dhix jirin maxaa keenay halkan inay ka dhacdo waxaa keenay musiibo iyo mushkilad dawladda Soomaaliya ay la rabtay Jubbaland inay ku khalkhal geliso nidaamkeeda ay ku burburiso ay ku dumiso waxaan leeyahay dawladda Jubbaland iyo ciidamada Jubbaland ka kooban qaybahooda kala duwan sida hanqad abris gurmad qaran iyo waxa weeye
qaybaha kala duwan ee daraawiishta iyo ciidamada Jubbaland waxay u maareeyeen iyo shacabka Jubbaland iyo dawladda Jubbaland isku duuban sidii ugu fududayd ee musiibada loo maareeyay lahaa ay u maareeyeen waxaan ugu baaqaynaa xaweeye dawladda Soomaaliya inay intaa ku ekayso oo ay joojiso khalkhalka ay hadda wali ka wado geda ka wado meel badan ay ka wado ee dawladda Jubbaland deegaamadii nabadda ahaa ee maamulada ku jiray lacagaha loo qaybinayo ee dadka Soomaaliyeed iska horkeenayo min fadlikum madaxweyne xasan sheekh maxamuud shabaab baa u baahan wadanka in la xoreeyo ciidamada Afrikaanaha jooga wadanka waxa weeye in maanta iyadoo ciidamada Soomaaliyeed oo la dagaalamaya shabaab oo xoog gaale ay joogaan oo meel walba jooga in waxa weeye la isku mashquuliyay ciidamada AMISOMna waxa weeye la yiraahdo noo kaale wadanka noo difaac oo kaaleena ilaaliyo shabaab nala dagaalgala inama qabato waxaan ugu haboonna ma aha waxa hawshan fuliyay waxa weeye amniga deegaanka ku soo celiyay xabadda waxa weeye sameeyay dagaalka bilaabay ee diyaaradaha keenay dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka anaga hor soconay magaalada nidaan u soo soconay deegaanka anaga u soo soconay ciidanku inay yimaadaan oo ay walaalahooda la falgalaan halkan jooga oo nu la hadallo oo nu dhalinyaro Soomaaliyeed baatiin waa la inay soo khalday xabad haridina bay ahayd laakiin iyaga xabadna ugu bilaabay iyagoo adeegsanaya qalabkii iyo ciidankii Soomaaliya loogu talagalay ee Soomaaliya anagu wax ku lahayn ee Jubbaland wax ku lahayd iyadoo waxa la adeegsanayo ay ugu bilaabeen laakiin sida ugu fududayd naftoodana lagu badbaadin lahaa xabad badan dad badan ay isku dhiman lahayn aysan waxa weeye ku badbaadi lahayn ayaa arintaasi loo maareeyay waxaan ugu baaqaynaa waxa weeye Soomaali nabad waxaan ugu baaqaynaa wada jir dawladnimada Soomaaliya ayaan gadaal loo celin yaan laga dhigin waxa weeye dana siyaasadeed iyo arrimo siyaasadeed oo laga leeyahay mustaqbalka oo qofka dhimanay qofka nool inuu gaari aan loogeyn in Soomaaliya la isugu dilo taasaan ilaahay dawladda Jubbaland anagoo afkeeda ku hadlayo ugu baaqaynaa kuwa banaanka ku dhoowanayso taliyo sheegay kuwa Kenya waxa weeye nabad ka dhiibay waxay yimaadeen sidan baa iyagana loo soo dhaweeyay xafisna loo weeyay u bilaabatay la doortay 25kii bishii naga tagtay inuu dawladda Soomaaliya la fariisto wada hadal la galo inuu diyaar u yahay annaguna taasaanu diyaar u nahay nabad baan Soomaaliya ugu baaqaynaa taliye macallin soo dhawow ciidanka waxa weeye waa dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye la wareeg waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inay intaas ku ekaan doonto waa maasantiin anigu horta waxaan ahay taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaliya waxaan u imaaday Kamboni maadaama taliyaha qaybta ahay dhulkana dhulka ay qaybtu ay shaqadeedu ay tahay Jubbaland State in wixii dhacay muxuu ku dhacay ma sax buu ahaa ma khalad buu ahaa ka hadli maayo laano ciidan baan ahay ciidankana siyaasadda waa ka xaraan kaliya dhalinyaradaas Soomaaliyeed ee ka tirsanaa ciidan ka tirsan ilaa hadda waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalkii meeshan ku dhacay waxa weeye lagu qabtay in aan la wareego xaafadahoodii iyo guryahoodiina aan gaarsiiyo si nabad ah intaa kaliya aan u imaaday wixii kale oo dhan wax ii yaalla maaha aniga waan ku faraxsanay marka inaan idiin imaado oo idin hor imaado idinkoo bad qaba xaaladdu kolba meel bay taagan tahay intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha u boodhayo caafimaad ha siiyo bidnillaahi alkariim caawa waxaa ku hooyan doontiin xaryihii laydinka soo qaaday muhiimaddeeduna intaa keliya waay siyaasad baana ka hadlaynin maxaa saxa maxaa khaldan baana ka hadlaynin muhiimaddu waxay tahay oon isu soo xilqaamay anigoo weliba aanan ogolaansho buuxa haysanin inaan anoo Kismaayo joogo aad halkan idinkana aad bacaad jiftaan oo waxaa weeye aad ku dhibaatootaan oo biyo ku weydaan oo nololeed ku weydaan intaa kaliya aan u imaaday waana tegaysaan bidnillaahi alkariim diyaaraddu way soo degaysaa falayd ka horreeya waa kacay 33 buu qaaday idinkana 50 baa tihiin dhalinyaro Soomaaliyeed baa tihiin waddankan waddankiinni waaye meeshan aan joognana waa waddankii la idinku talagalay waaye khaladkaa dhacayna kolay mas-uuliyiin baa iskale
ciidankaana ma laha waxaa weeye intii u talinaysay ee lasoo dirayna ma laha muhiimaddeedu keliya marka waxaa weeye inaa idinla wareego goobihii laydinka soo qaadayna diyaaraddu idin geyso meeshii laydinka soo qaaday ee diyaaraddu idin geyso muhiimadda intaa waaye aad baana u mahadsantihiin inta joogtana waa dhammaystirayna waa qaadaynaa wixii meelahan ku dhuuman hayana oo cabsi hayso ama dee si kaleeto u maqanna waxaan leeyahay anigoo taliyihii qaybtaha jooga imaada adigana waan kula wareegaynaa waana ku qaadaynaa aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu